badan oo Soomaali ah ayaa la rajeynayaa in ay qaataan sharciga dhalashada iyo midka deganaanshaha waddanka Jarmalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waa wariyaalka shacabka YouTube kaniguna waa Cabduqaadir Xasan Duuliye. Sanadkan iminka bilowga ah ee bishii ugu horeysay ee sanadka iminka lagu guda jiro Soomaali badan ayaa la rajeynayaa insha Allah in ay qaadato sharciga dhalashada waddanka Jarmalka. kuwa badan oo sharciga deganaanshaha laftirkooda ku dhibanaana waxaa la rajeynayaa in ay sanadkan qaataan sharciga deganaanshaha. Haddaba dadka laga rabo in ay qaataan sharciga dhalashada iyo midka deganaanshaha waa kuwa. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ee bartan hoyaalka shacabka YouTube-ka aad soo booqatid, waxaan kaa codsanayaa waxay tahay inaad subscribe inoo saartid, sidoo kale like iyo commentiga waa inoo muhiim. Haddaba si aan u ogaado inaad ila socotid, waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad ila gees marin oo aad saartid like ilaa waa daawanaysaa. marmarka qaar muuqaalada oo dad badan ay daawadaan waa arkaa, laakiin xoogaa waxa ugu yar like marka asxaabta dhiirigelinta waa qayb kamid ah hor u socodka insha Allah. muuqaalka ayaa sii qaadaa dhigi doona. dad badan oo Soomaali ah ayaa la rajeynayaa insha Allah in ay qaataan sharciga dhalashada ee waddanka Jarmalka. runtii Soomaalida waxa ay kamid tahay dadka xilliyadii ugu dambeeyay ama sanadyadii ugu dambeeyay xoogaa cadaadis ah kala kulmay dawladda oo lagu dhibay dhanka sharciga qaadashadiisa, isla markaana su'aalo badan, dukumeentiyo tiro badan loo diray oo la yiri dukumeentiyadaas waa inaan oo keentin. qaarba waxyaabo kala duwan baa loo sheegayaa. qaarba markay xafiisyada ay ka xariisanayaan sharciga tagaan waxa la leeyahay adinka waxaad noo keentiin passport Soomaali ah. qaar waxa la leeyahay dhalasho keena, qaar waxa la leeyahay warqado kala keena oo cadeynaya Soomaalinimadiina. waxyaabo badan oo aad u tiro badan ayaa jira. gobolada qaar xoogaa way kala duwan yihiin. waxa sidoo kale jira magaalooyin cadaadis dadka saara oo u diida sharciyada, isagoo qofka aanan wadankii dambi ka gelin sharcigii markaas uu xariisanayana wax walba oo laga rabo oo sharcigaas uu ku qaadan karo uu dawladda u geeyay, haddana la leeyahay Soomaalinimadaada ma cadda. maxaan sameeyaa Soomaalinimadeeda haddaysan caddeyn? anaa dan leh danteyda waa muhiim wax walba inaan u sameeyo. waxa la leeyahay qofkaas waa inaan noo keentaa passport Soomaali ah, mar waxa la leeyahay waa inaan dhalasho keentaa. dhalashadii iyo passportka Soomaaliga markuu geeyana waxa la leeyahay haddana waa inaan waxyaabaha kale noo keentaa. waxyaaba aniga laftirkayga aan soo ogaaday ayaa jira. haddaba haddii lagu diro passport Soomaali ah iyo warqad dhalasho ah, magaalada qaab bay u dhaqantaa ama sharcigeedu waa nooc. mar walbana waxay ku xiran tahay sharcigan dadka la siinayo qofka magaaladaasi madaxda ka ah dhanka sharciyada dadka qaxootiga la siinayo ayay ku xiran tahay. dad waa iska adag yihiin oo si fudud dadka waxa waaye kuma siiyaan sharciga, kuwana xoogaa way iska fiican yihiin. maanta passport Soomaali haddaad geysid meel kaloo la aadi karo maaha, laakiin iyaga laftirkood passportka Soomaalida ay hadda aad soo samaysatay ku qanacsanayn. waxay ku leeyihiinba waa in aad dukumeenti intaada waddankan imaanin ka hor aad lahayd inoo keentaa. tusaale oo kale sida sharciga baabuurta lagu wado oo kale, ID card aad lahayd oo kale oo aad iskuulka ama jaamacad aad kusoo dhigato oo kale, warqado dhalasho sugnaan aad xilliyadaas aad lahayd oo kale oo aan ahayn dee kuwa hadda la samaysanayo. marka waxyaabahaas ay dadka qaar ay u dirayaan iyagoo haddana dukumeentiga keenay ayay warqadaas usii dirayaan. marka aniga fikir ahaan haddii lagu diro passportka Soomaaliga ah, horta waa ku qasban tahay inaad passportka Soomaaliga aad geysid. marka kuwaas markay passportka Soomaaliga aad u geysid, magaalooyinka qaar waxa laga yaabaa inay ku fududeeyaan oo passport Soomaali haddaad u geysid ba ay ku qancaan. laakiin qaar kale oo passportka Soomaaliga loo geeyay oo waxa jira haddana diraya warqado kale ama dukumeentiyo kale oo xilligaad waddanka timid ka hor aad lahayd. marka dukumeentiyadaas haddaad lahayd, waxaan ku leeyahay waxay tahay maalinta aad ballanta dhigatid ee aad sharciga xariisanaysid, passportkaaga Soomaaliga, warqada dhalashadaada, dukumeentiyo aad lahayd wadankii markaad joogtay isku qaad, ama kuwo dee haddaad rabtid xilligan samaysay laakiin farsamaysa haddaad rabtid dhammaantood wada qaado meesha raad house-ka la tag. markay xariisanayso sharciga, haddii markaa ay ku weydiiyaan oo kale oo ay ku dhahaan passport Soomaali u baahannahay, waa kan passportkayga dheh, warqad dhalashaan u baahannahay, waa tan warqadayda dhalashada dheh.
kadib markaa dee waxa laga yaabaa inayba intaas ku ekaato. laakiin haddii ay meel kale kula sii aadaan waxaad dhahdaa aniga dukumentigii aan lahaa markaan Soomaaliya joogo waa kan oo waqti intaan wadankan imaan ka hor ah aan lahaa waa kan. marka fadlan intaas ku qanacin. intaas hadday helaan waa dee meel kale oo aadi karaa ma lahan. haddii ay meel kale kula sii aadaan dee ayaga iyo waxay u taallaa iyo waxaan ay la wareegayaan. laakiin intaas dokumenti hore oo intaada wadankan imaanin ah iyo baasaboorka Soomaalida iyo warqadda dhalashada intaas way ku qanci karaan. warqada kale waxaa jira ay safaaradaha dadka uga diraan oo leeyihiin Soomaalinimadaada in ay cad soo macnaha ku soo cadeey camal oo safaaradda nooga keen. laakiin warqadaas dad lagu xiro way jiraan. laakiin waxa ka muhiimsan waxay tahay baasaboorka dhalashadan iyo dokumentiga intaad halkan imaanin ka hor aad lahayd. intaas haddaad haysatid dee meel kale oo la aadi kala ma lahan. marka waxaan usoo noqonayaa waxay tahay marka dadka sharciyada la siin doono. dadka sharciyada la siin doono waa dadka aan wadankan dambi ka gelin. waa qodobka koowaad. waa dadka shuruudaha sharciga lagu qaato buuxiyey. waa arrinka labaad. arrinka saddexaadna wuxuu noqon doonaa waxay tahay 5 sano ka hor qofkii wadankan joogay sharcigiisa ama dhalasho ha noqoto ama deganaansho ha noqoto waa la siinayaa. marka shuruudahaas haddaad buuxisay dambina wadankan aada ka gelin 5 sano ka horna wadankan aad joogtay runtii sharcigaaga waa lagu siinayaa. kali ah dee intaas aan kuu sheegay oo ah in Soomaalinimadaada aad cadeysid waa haddii ay kugu xiraan waaye u gee baasaboorka iyo warqadda dhalashada iyo dokumenti aad hore u lahayd hore u qaado xafiiska ula tag. marka dadkaas ayaa la siin doonaa. marka waxaa jira markaa dadka qaar inay ku adkeynayaan oo ay u diidi doonaan sharciga dhalashada ama degenaanshada hadday ka xariistaan. tusaale oo kale haddaa 9 sano 10 sano 20 sano ka hor aad joogtay oo wadankan oo aadan shaqaysan oo aadan waxba qabsan dee sharci si lagugu siiyo walaal way adag tahay. marka runtii waxa ku muhiim ah siiba hooyooyinka guryaha jooga waxa u muhiim ah in ay markaasi bal isku diyaan inay shaqeeyaan. ilmaha hadday ilmo ku joogaan hooyo oo ilmaha gurigaaga ay ku joogaan oo aad haysid waa ku qasbantahay inaad ilmaha la joogto. laakiin ilmaha hadday kindergarten iyo school iyo ay aadaan oo kale fadlan shaqee oo waxaa 2 saacadood oo maalintii kamid ah ama 3 saacadood oo maalintii kamid ah way kugu filan tahay. qasab ma aha inaad complete maalinta oo dhan shaqaysid ama full side ama tile side aad shaqaysid muhiim ma aha. kali ah mini job haddaad heshid gunuub way kugu filan tahay. waa inaad shaqaysaa oo maalintii aad sharciga xariisanaysid aad dokumentiyadaadii shaqada ama warqadaadii loan applicationkaagii aad geysaa. marka way ku fududaanaysaa runtii. laakiin haddaad dhahdid aniga 10 sanaan jooga wadankan ma shaqaynin waa sidaan xogaa waxa laga yaabaa inay kugu adkeeyaan. muuqaalkayga intaas ayaan kusoo gabagabinayaa. haddaba asxaabta waa sidaan idin sheegay ilaagtay inoo reeba mar kale ayaa idinkugu soo celinayaa. sidoo kale dee waxa waaye haddii aad muuqaaladan aad ka heshin insha Allah waan idin soo badinayaa. dee muuqaalo kale intaa ku kulmi doon waxay tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. halkan waa horyaalka shacabka YouTube.